haddii bulshada ka xoogsata jaadkani ay helaan fursado shaqo oo ka duwan kuwii ay hore u hayeen ma ka bixi doonaan shaqadan ka ganacsiga jaadka qaad wax mustaqbal saw sile maaha laakiin waan iska bedel haddii anigu aan camal helaya ama magarasa meel aan gelay anigu dad shahaadadaygu waxay gaarsiinay anigu shahaadadaygu waxay gaarsiinay aniga cabdisaaq maxay doonaa maxaan ku kalifay qaad ka ganacsato waxaan jii bilaamal ayaa ku kalifay ina ka ganacsada qaadka intee leeyahay shaqeynayso muddo 12 sano ayaa ka shaqeynay mudada dhaqaalaha kaaga soo baxay waxaad maxad ku dabaraysaa waxaan ku dabarayay xaafadayda Umar Ismaaciil waa silgay waan ku ganacsatay shaqada aad baan ugu ganacsanay cunista iyo ka ganacsiga jaadku waa mid ka jira magaalooyinka dalka oo dhan oo aan ku koobnayn magaalada Burco isla markaana la wadaaga saameynta kala duwan ee uu ku yeeshay bulshada kala bayd waa xarunta uu ku yaalo kastanka ugu weyn ee uu ka soo dogo jaadku marka uu ka yimaado dhinaca Itoobiya halkaasna laga qaado cashuurta jaadka kadibna jaadku u kala goosho gobolada dalka oo dhan sidoo kale gaadiidkii hore ee jaadka ka soo qaaday Itoobiya waxa uu ku wareejiyaa gaadiid kale iyaguna dib ayay uga laabtaan halkaasi marka gaadiidka jaadka sidaas soo gaadho magaalada Abaarso oo 50 kiiloomitir u jirta kala baydh ayaa wax uu ku leexdaa kastan kale oo cashuureed oo ku yaala magaaladaasi balse laguma cashuuro jaadka ee waxa lagu hubiyaa oo dib loogu tiriyaa tirada jaadka saaran gaadhiga iyadoo loo hubinayo in dhammaan tirada jaadka gaadhigu sido la soo wada cashuuray iyo in kale hase yeeshee mas'uuliyiinta madaxda ka ah kastamadaasi iyo saraakiisha booliiska ee ku weheliya ayaa markaa indhaha ka qaadaan suxufiyiinta iyo kamaradaha ay sitaan sas iyo cabsi ka qaada isla markaana ka gaabsada inay ka warbixiyaan su'aalaha ay wariyaashu uga baahan yihiin kuna hantaaqa hadalla ay ka mid yihiin awood uma lihin inaanu idiin fasaxno duubista gaadiidka jaadka sida ee xarunta ku jira iskabada inaanu war idin siinee arrintani waxa ay muujinaysaa kalsooni darrada iyo baqdinta uu ka qabo mas'uuliyiinta ka sareysa ee keentay goobta waana arrin iska caadi ah in had iyo jeer goobaha dakhliga lacaguhu ku soo xaroodaan ee sidan oo kale ah la geeyo shaqaale idman oo ku xunan meelo sare iyo dana kale maadaama wax isdhaafin iyo musuq badani ku hoos jiro mar kasta jidka u dhaxeeya kala baydh iyo Hargeysa waxa si xoog leh u mara gaadiidka sida jaadka ee isugu jira kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba fadhi waxa uu ka mid yahay daraweynta gaadiidka jaadka qaada intii uu hana qaadayna ku shaqaynayay shaqadan jaadka isla markaana waa nin ku ganacsan kaxaynta gaadiidka jaadka inkastoo uu dhibaatooyin kala kumay muddadii uu hawshan ku jiray fadhi ilaahan ka soo baxday maanta jaadka soo qaaday kala bayd qaadka sida waa nooce ina faras xagaa ku socotaa qaadka waa noociisu aankee jabs waxa weeye kii waa weynaa waa mise baag afata gaariga xoog bad u waday gaariyaasha qaadka xoog bad u waday miyaadan khatar ka cabsan ama dhicis laakiin ilaahay baa xalaaliya faa'iidada ku qoran sigiis wixii la ku siiyay faa'iidada kugu jirta ka ganacsiga qaadka maxay tahay waxa badan baa ku loo markii Soomaaliya ma jeetaan loo eego waxa badan baa ku loo laakiin haddii wax dhamal heli lahaa wala isku dayna انت شغينسي الشقه ugu horeeyeen bilaabay ilaa inuu shaqeeyo inta الى انت جالس انت سنه جالس ايوه قاد والله انت ما حسن kartaa dhibaatada kugu cusub kula kuntay inta qaadka wadii kullaha ya yar badan baa jidda inta si ka danay markii gaari la socdo ay ku dhaawacmay ay ku daray qaadka sita magaalada Hargeysa waxay ka mid tahay sayladaha ugu waaweyn ee jaadka lagu iibiyo gaar ahaan nooca loo yaqaan jabiska iyo madhabka kuwaas oo qiimaha lagu iibiyaa u dhaxeeyo $6 ilaa $12 jaadka soo gala magaalada Hargeysa ayaa socda ilaa habeenkii loona kala yaqaana channel 1 iyo channel 2 iyo channel 3 bulshada jaadka cunaysa ayaa ah kuwa aan moogaleyn dhibaatada caafimaad ama dhaqaale ee uu leeyahay jaadku balse tilmaamaya inay duruufo kale ku kalifeen cunistiisa
adiga magaca يا adiga magaca أنا مقعية علي بلده علي ayo علي محمد بلده علي maxaad ka shaqaysaa يو مقص عمل ما هي يمك maxaa kuu kalifayaan qaad ka cunto قاعد كم واحد يمكن اللي صاحبه ده بيسوق عليه مركا دورش كم مسؤولية مرات بلا عمل جمال هتنا بالعمل أيوة شغال هاي مكان عقنا هذا هاي حبوا ما هي بدي ما تقديس لما تيجي كريو مركا لما دام عمل هينين شغال عن هينين وحاسس مسؤولين بيس كذا دروغ إسكا لكن وقت كورة إسقاط كانوا عارف ما ده دباطة عارف ما ها وأنا قاعد إنه دباطك استناع كستولي وحلي هاي نفكس فربان وليبا دمر كأي دبكوا عيان هو أنا قلته واحد كله لي يهود الآن الرفض ربنا هو مكان أنا تدخل إني كأني ده حصنين أيو لي أظن تابوك معك كل فينا العصر واحد يمكن في عملان واسمه شغلنا يا مدين تلك من عنا سقاط إني كمتصل تصنعني تاري عبر الملاذ هي حاس ها مركب قيسو مشكلة دي دباطة دي هيك من كل حبورة وايو وان سلينا ده ما كورة إسا عرور تادو سكول كي تجيان هدي عافمات ما إحنا نلقينه ما يقربوا ما يبقى إلى وحبرتان إنك إيه وحبرتان يجوا هجوم ما يمضوا يجوا هجوم وانا كتجاون مصاريف تبيل الحياة كي هي اللي المخاص جميع إلهي بس يا وحبوا ما حلا مرقام أنت الغير يصير محل مشكلة ده مرة دباطة وقوة أبو رباس لا تقاطهم مرقام يا هذا كل ما بدي يا أبو مرمر أنا يا وصفة قبل ديهم بابا يتراهم دار محاكمة عروت الجوح صوصي وراسون ما يبدأ أنا محاياتي عملوا معي صوتي قاعد كعمية نقال لنا نقطع ما يدعم هذا عمل كفي عن أما الشغل كلا هذه اللي فرصة شغل مسكين دين القاط الله هو سكتين لوا ما جاي زمك أظن مقدار سكتين يا مقدار ده كده ها تصغير زمك يمكن واحد لون القاط وكذا هذه المدبر يمثل يميسوا يمثل قيمي سوا أفرت كل يا سنة أفرت ما نقص مثلا بدو دور ولا $1 كله ها ولا تضبط ولا $1 ما لك سميت الشمس أو مركز الشغل ما نقص دورنا تالفت هذا دينا عندي العق بدن خصوصا بعدين وحن بيرين يا كل يجي يعني وقعد كيس ما ترك يعني مقدار واحد لا حالي واحد كل زبطني قاعد كده يوم كان فرح قاعد ونعرض الله يارون بلا مكان لكن ويقع halkaas waa marqaankii baalka la mariyay markaad qaysid aad ka kacdo maxaad dareentaa madaxa iyo dhagaxa iyo meel walba ay fidaan mood baan galaa sigaar kuma badsan markaa walwaayo waxa la yaqaan marqaan baa laga helaa bal marqaan inoo minceefiya marqaanku waxa weeye dee atashankaagii baa kacaya waa waalanaysaa gebigaaguba marmar baan gurigayga dhaafaa markan meelaha ka gacan qaya on markan guri kala aan garaaca xasalaayna waa iga furaa waa kuma ahayd hadda waa aniga fur guriga soo iyadiiba ma haba ya iyadiiba ma haba raalaha iyadii ma raala gurigayga baa dimadii marqaanku waa noocaas marqaanku waa halkaas la maraya marqaanka ka salayna laakiin dadka kale aan qayilin ama kuwa idaada yar cunaysa iyaga maxaad oranay waxaan oran lahaa isku cunna iska daayaan oran lahaa inta idin hore ku waalatay magaalada عبد السامع يا عبد السامع انت لك بالقاد كعنيسي قاد فحل علي مجو 6 سنوات ولو تلو دبعت عافمات خطر لي هاي معك فكر فينا انت معتي قادك ما تكور هايسا واللي باتيسا دبعتوين بدن او حق عافمات لا حق دقالها لي هاي بالضبط فكر فين انت انت waxa uu kulfi amal khilal weyn oo ka shaqano وضبطوا ها marka shaqada tan ku sugna ilaahay baan ku sugnaa midanta hadaa fursad shaqo oo tan dhaantay ilaahay ku siin lahaa kuma soo noqonayo kuma la shaqeynaa dibna kuma shaqeyn qadme in badan baan cunaysay in badan baan cunay waana ku shaqeynay wax la tijulay ma jirto in badan baan cunaysay ha ka shaqeynayay waana ku shaqeynay waxa dhibaataa ama xusuustaada maankaaga xusuustayda ilkahaygu buu qabaa burdalaan dhaqaalaha yaa
carruurtaadu badan sakaas kumaha mararka qaar kuwan adeerku waa bangaroonay haa muxuu ahaa wiil walaalka badhalay ya warba kama hayo may habeenkii iyagoo seexday ayaan tagaa guriga subaxiina iyagoo mucaamadaha ku maqan oo soo la dhacay ayaan tegayaa ka soo baxaya gurigii dee inta boos maaragnaba waayo qaadka waxa lagu sheegaa inuu marqaan badan leeyahay adu marqaanka qaadka laga helo maxaad nooga sheegi kartaa wax marqaan laga helo qaadka ma jirto waxaan darooga ahayn wiilkaa ugu bedelaya qaadka alwaaluun baa laga helaa markaa waalidaas marqaan loo yaqaanaa soomaalidu wareerun bay tiraa waa marqaame wax marqaan leeyahay ma jiro dhibaato ku haya dalkii dadkaba cabdi okay daada iyo dhalinyarada imika cunaysa jaadka ee ku soo baranaysaa iyo kuwa kaa dambeedu cunaya maxaad kula talin waxaan kula talin lahaa inay wax bartaan anu qaadkaa cun inamadu yareemka bilaabaya annaguna waan isku dayna hadda shaqo dhaata helo haa falaan ku qaadana hase yeeshee qaar kale oo ka mida dadkaasi ayaa si niyad ah ugu qanacsan cunista jaadkan aniga cawil kowsaar baa la yidhaha cawil kowsaar bile cawil haa bacbad qaad ku cunaysaa ida cawsada kala saaraysaa waan arkaya maxaad cunaysaa waa qaad haye qaad baan cunayaa intee sannadood baad cunaysa waxaan cunayay ilaa 30 sano ilaa 40 sano meelaha maxaa kugu kalifaynaad waa dawo bahalku caafimaad baan ka helay cudurro badan buu ka daweeyey ayna dadku garanayn dhacaankaa ka mida dhiigkarkaa ka mida ma fahantay ilkaha laftiisa waa u dawo bahalku waa caafimaad intan aad sheegtaba waa inta dhakhaatiirtu sheegtay inuu halis tahay waan gartan qaadkuna sababo waxaad ku keentay inuu aadna tiraado waa caafimaad dawo weyn oo caafimaad aanu ka helay reermanaada iyo carruur waan leeyahay heerka iyo khilaafka iyo mushkilad ma kugu dhex abuuraa adiga reerka maye wax allaale wuxuu igu dhex abuuraa ma jirto carruurta iskuulka ma tagtaan ma la socotaa waxbarashadooda way la socdaan waan la socdaayoo waan ka warhayaa se laakiin baalkani waa dawo dadkana waxaan kula talinayaa inay caad iyo aad u cunaan baalkan waa dawo waa 20 qaad weeyo isku dhex jira mid keliyaba maaha waa boondaro waa jabis waa aawaday waa 100 qaad hadda wuu igu qarxayaayo faaxigaaban keenayaaba markaad qaysho aad marqaanto maxaad dareentaa caafimaad weyn hurdo weyn wakaa reerkii carruurta ma kala badbaadaan waxba iskuma sheegano iyadaaban ku mashquulsanay